حرسي 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 عرو عرو waayeelka waxgaradka dhalinyarada iyo haldoorka beelaha galbeedka gobolka Sanaag oo shir jiraad ku qabtay magaalada Ceergabo ayaa taageero ballaaran u muujiyay gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan kaasoo dhawaan loo doortay gudoomiyenimada xisbigaas 5 sano ee soo socota dhanka kalena waxay sidoo kale taageero ballaaran u muujiyeen murashaxa madaxweynaha xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waayeelka iyo waxgaradka saladinta iyo boqorada waxa hadaladoodii kamid ahaa maanta waxa halkan waxa weeye magaalada Ceergabo waa beertii xorriyadda oo gobolka Sanaag halka waxa isugu yimi dhammaan beelweynta habar jeclo oo diyaar u ah inay saboorto dhowr go'aan oo kala duwanaa kuwaas oo quseeyay ka koowaad oo ah arrinkii taariikhiga ahaa xisbiga wadani uu sameeyay oo hogaaminaya Cabdiraxmaan Ciro markuu ugu horeysa Cabdiraxmaan Ciro beesha habar jeclo waa mahadnaqaysa go'aanka geesinimada lagu gaaray ee ku dayashada leh waan ugu mahadnaqaynaa marka labaadna waxaanu hambalyeeynaa oo aanu kula shaqeynaynaa gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ahaa nin wadanka oo dhan wax u qabtay isla markaana gobolka Sanaagna marka Axmed Siilaaye laga yimaado wadada Sanaag wadada aad aragtay isku xidha Togdheer iyo Sanaag ninkii ahaa mishiinkii sameynayay ahaa ninka oo abaal weyn nagu leh wadanka oo dhan ku leh khaasatan aan u aragno maanta hadii aan ummad horgeyno inaanu habar jecel nagu ceebaynayn ayaanu isagana u hambalyeynayna oo ku garab taaganahay manihin kuwii ugu horeeyay garab istaagay gudidii habar jeclo oo anigu aan kamid ahay ayaa bayaan weyn ka soo saartay magaalada Barco kaasoo ay ku taageertay Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo gudoonkiisa annaguna sidaas si leeg ayaanu ku taageeray isla markaana sidaa ay xisbiga wadani u taageereen ayaanu u taageeray habar jeclo maanta ciidamo maqna habar jeclo xisbiga wadani ma nahay xisbigan aanu u soo ururay wadani gudoomiyihiisa Cabdiraxmaan Ciro mahad baanu naqayaa hambalyaan leenahay hambalyo waxaan talabaadna siinayaa Xirsi Cali Xaaji Xasan anigoo afkii habar jeclo ku hadlaya bari waan talabaadna Xirsi Cali Xaaji Xasan baan hambalyeynayaa xilka loo dhiibay gudoomiyaha xisbiga waa ku hambalyeynaya waana kula shaqeynaynaa waxa kale jira Soomaalidu waxay tiraa ku hursiya la hursiya ninkii wax quura baa wax lala qabanaya hada caati waalid waxa wuxuu bixiyay ninkaasu halkan waxaan ku hambalyeeyay hadii aanu nahay beesha habar jeclo ee gobolka galbeedka gobolka Sanaag annagoo joogna beertii xorriyadda waxaanu hambalyeynaynaa musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro oo taariikh lama ilaawana sameeyay oo isagoo gudoomiyaha oo aanshaha ku cabin xisbigii ku wareejiyay Xirsi Xaaji Cali waxaanu leenahay waa ku dooraynaa madaxweynaha tahay maanta laga bilaabo madaxweynaha mustaqbalka 10 sano soo socda ku bishaarayso annaguna hiil iyo hoob waa kula garab taaganahay anigoo ah chief aqalka dhalinyarada beesha bariga Barco waxaan halkan hambaliyo uga dirayaa gudoomiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo dhammaanba xisbiga wadani guushay gaareen la taaban karo ay himilooyinkooda uga dhabeeyay shacabka Soomaaliland waan ku taageersanahay kuna garab istaagnaa banay xafladda waxaanu ku soo dhaweynaynaa taageerada aanu taageerayno Xirsi Cali Xaaji Xasan aad baan u taageeraynaa waanu soo dhaweynaynaa waa la shaqeynaynaa xisbiga wadani in badan baanu ka maqnayn haddii alla beedankeeda maanta waxaanu u diyaarnahay inaanu gallo xisbiga wadani waanu gallay sabab Cabdiraxmaan Cirona waxaanu u ballan qaadaynaa inuu kursiga madaxweyne ku fadhiisto haddii ilaahay garto waxaan halkan hambalyo uga diraynaa gudoomiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan waxaan kaloo hambalyo u dirayaa gudoomiyaha ku dhiiraday
inuu xisbigii guddoomiyenimada isagoo aan xisbigii madaxweyne noqon u wareejiyo cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro dhammaan xisbiga wadani iyo jamhuuriyadda somalilan hambalyaan u dirayaa waxaana caddaatay oo caddaanaysa inuu xisbigii waddadii guusha runta waddada cagta saaray isu aaminay iyo siduu hogagii siyaasaddee la guurguurayey aanu u ilduufayn sida xisbiyada qaar ay u ilduufayn ilaa waqtiga ay ku dhegan yihiin qodobkii ay soo barteen weliba ay dee horena u arkeen inay ku soo baxeen ay haddeer garan laayihiin weli oo aanaanu garanayn dee meelay ku socdaan yahanku iskugu yimi waxaanu ujeeddadayadu tahay inaannu marka hore ku taageerno guddoomiyaha xirsi haddeer xusbiga cusub loo dhiibay xusbiga guddoomiyaha lagu wareejiyey iyo mahad labaadna waxaannu u celinaynaa guddoomiye ciro oo si lama filaana ku wareejiyey xusbigii isagoo aan madaxweyne gaadhin isagana waxaannu leenahay kugu ballanqaadaynaa inaannu cudud iyo codkaba kugu hiilinayna haddaanaan nafta waayin waxaanu soo dhoweynay madaxweynaha cabdiraxmaan ciro waxaan kugu salaaminaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar saddexaad waxaan leeyahay oo aannu hambalyanaynaa xirsi guddoomiyaha waddani waanu ku soo dhoweynaynaa habalyaanu ku siinaynaa waxaannu halkan isugu soo baxnay in aannu ku taageero xusbiga waddani oo aannu taageeradaas aannu siinno wakhtiga kan aynu hadda joogno iyo wixii ka dambeeya waxaannu taageeraynaa musharaxa cabdiraxmaan ciro sida dhiiran maaragtay kartida leh cadaaladda leh ugu wareejiyey xusbiga ee guddoomiyihii ku wareejiyey xirsi cali xaaji xasan waxaana mar labaad halkan hambalyaad iyo aad ugu diraya xirsi xaaji cali oo ku guulaystay guddoomiyaha xisbiga waddani hiil iyo hoolna waxaanu la garab taagannahay inaannu insha allah aanu xisbigaa kula shaqayno waxaan leenahay haddaannu ahayn dhallinyaradii awalba hiil iyo hoolka laga garab taagnayn xisbiga kulmiye dee horaanu fartayada weedna maanta fartayada eedimayno cabdiraxmaan maxamed xidig bulsha t v ceerigaabo